بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحال يراها عمر محمد. أه waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago in ay siyaasadayna mid noqoto, hadalkayna mid noqdaa, wadajirkayna oo mid noqdaa, wadajirka oo Soomaali midnimada Soomaali oo qofka Soomaaliya oo midnimo inuu aaminsan yahay. qofka hadduu midnimo aaminsanaynin waxba laguma darsan karo, lalama hadli karo, because nin qadiyadda Soomaaliya amba calanka Soomaaliya uu sharaftiisa hoos u dhigayo waaye ayaan dhihi karaa. Midnimada Soomaaliya qofka markii jagal loo dhiibayo amba shaqo dowladeed loo dhiibayo waa in uu aaminsan yahay midnimada. Waxaan ku faraxsanahay inay dowladda Soomaaliya ay ka dhawaajisay in la yiray nin la arko maalinta uu xilka qabahayo dowladda Soomaaliya oo siifkiisa iyo hantidiisa iyo nin aanan xagjir ahaynin in uu xilka qaba karo. La wadaag si fiican in la wadaagay fikraddaas. Waxaan rabaa fikradda lamaad oo inaan ku darsado oo rabo ardayda Soomaaliya ku nool gudaha Soomaaliya oo si fiican wax u barteen oo dhibaato badan wax ku soo bartay in jaaniska la siiyo oo la dhihin ninka markuu waxa uu sameeyay iyo diblomka uu sitay inaana lagu qiimeyn oo yaa ku soo diri leeyahay. taas aadan aga xumahay ardayda Soomaaliyeed haddaad tihiin. waxaanan aaminsanahay ninka Soomaaliya oo wax bartaa inuu si fiican ay taariikhda u xusi doonto oonan ma arkinoo shaqo ka qaba kara dowladda Soomaaliya meel walbay tahay. hadduu xafiiska uu koreeyo xafiiska uu hooseeyo oo ma arkinoo oo aqoonteeda uu leeyahay. intaas ayaan rabaa inaan idinla wadaago. waxaan rabaa suxufiyiinta iyo aqoon-yahanada markay miidiyaha ka hadlayaan in ay ma arkinoo waxyaabaha qodood inaana laga sheegin, sababtoo ah qadiyadda aan leedahay dad meel aga dhacdo dhibaatada ay leedahay. qadiyadda aan leenahay Soomaaliya inay mid tahay, inay Soomaaliya haybadii iyo karaamadii Soomaaliyeed ee lagu yaqiinay in la soo celiyay ayaan rabnaa. marka waxaan leeyahay qof walbo in uu ahaado inay afka wax ku dhisto, inay idinka wax ku dhisto, qoftii sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed qiimayso. fikraddaasaan rabaa inay idinla wadaago. asalaamu calaykum. taageeradana way fiicantaa, dowladda way dhaqaaqday, wixii waa laysku shaandhiyey. maamul goboleedyada waxaad ogtihiin in hal mar la samey raba ciidamadii qaranka ee Soomaaliyeed si jamlada laysugu geyn lahaa laysugu dhexdhafi lahaay si ay gobol walba iyo degmo kasta iyo xad walba oo Soomaaliya ka mid ah ay waajibaadkooda u gutaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. sidaas iyo mac salaama.